hay-adda xuquuqul insaanka u qaabilsan dalkani koonfur africa South African Human Rights Commission ayaa soo qaban qaabisay kulankani waxaana ka soo qayb galay inta badan horjoogayaasha ururada qaxootiga dalkani koonfur africa oo ay Soomaalidu ka mid ka tahay taliyayaasha laamaha ammaanka saraakiil ka socotay waaxda socdaalka dalka iyo qaybo badan oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha dhibanayaasha. Cabdulqaadir oo ka mid ah mas'uuliyiintii goobta ka hadashay ayaa sheegay in Soomaalida aysan helin waxyaabaha ay xaq u leeyihiin inay helaan sida ammaanka, caafimaadka, sharciga oo muddooyinkii ugu dambeeyay cabashadiisu ay ahayd mid taagan isagoona dhaliishaasi u jeediyay hay'adaha ay qusayso. For example, here in Belgium we have a police station. We don't have a very good relationship with that police station. I would also like to talk about the Department of Health, which is very, very important for foreign nationals. We always face difficulties when it comes to accessing health services. sidoo kale Engineer Hussein ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay. Also the local people who stand up against it and who assist and who help and who give shelter and food and everything. Cabdiraxmaan Faarax iyo Muuse Muudey Afrax oo ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda ayaa markii uu kulankaasi soo idlaaday TV-ga Universal ugu warbixiyay waxyaabihii looga hadlay. ugu si weyn ee meesha loogu dooday waxay ahayd xuquuqda ay leeyihiin dadka fooranka ama ajaanibka ah ma heleen xuquuqdoodii ma lagu xadgudbay mise haddii lagu xadgudbayna wax ma laga qabtay iyo wixii aan qabno markaana iyadana waan gudbinay wax walba xenophobia sharci dhibaato kasta any problem waa looga hadlay. sidoo kale Cabdiqadar oo ka mid ahaa dadka ku naafoobay dalkani koonfur Afrika kana mid ahaa dadkii kulanka ka soo qayb galay ayaa isna dhankiisa ka hadlay. magacay waxaa weeye Cabdiqadar Shukri represent the Somali Disability Association of South Africa. shirkan oo maanta ay qabato Human Rights kan ka soo qayb galay arrimaha looga hadlayo oo ah xagga ammaanka, isdhexgalka bulshada iyo horumarinta magaranaysa wanaagga oo laga hortagayo arrimaha xenophobia. aniguna waxaan matalayay ururka naafada ee South Africa. waxaan ku rajaynayaa in macnaha bulshada aan la deganahay iyo bulshooyinka qaxootiga wadanka ku nool ay isfahmaan oo ina macnaha caqabadaha haysta ay ka baxaan oo si freely ay wadanka ugu wada noolaan. anigu wadanka waxa ugu soo gaaray xabad ay ugu dhacday 2012 ka dhamaadkiisii. si kastaba ha ahaatee kulankani ayaa waxa uu imaanayaa xilli sanadadii ugu dambeeyay qaxootiga ku dhaqan dalkani koonfur Afrika ay ka cabanayeen waaxda sharci bixinta ee dalkani koonfur Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.